بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرسي أني تفسيرك وحانك بالله بين سورة الليلة سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة وحالي هذا سورة البقرة وسورة أقدر قرآنك أردن سورة أقدر هي سورة انتهي ويفضل بدنتهي فضائش هذا waxaa ka mid ah nabi sallallahu alayhi wasallam inuu yiri shaydaanku wuu ka cararaa guriga lagu akhriyo suuratul baqara, yani guri suuratul baqara lagu akhriyo shaydaanku ma soo galaayo. asaas daraadeed waxa la rabaa in guriyaha yani quraanka markii la akhrisanayo guriyaha lagu akhristo oo suuratul faatiha suuratul baqara quraanka yani qayb kamida wardiga yawmiga ah qofka inuu gurigiisa uu siiyo sixir ay ugu noqoto shayaadiinta kuwada insiga iyo kuwada jinniga yani ilaahay uga badbaadiyo. suuradu marka qisooyin badan ahkaam badan arrimo badan ay ka hadlaysaa maadaama suurada quraanka ugu dheer ay tahay. qaybaha ugu horeeyaan soo qaadano waxay tilmaamaysaa yani dadku inay u kala baxayaan saddex qaybood. qayb waxa la yiraahdaa dad mu'miniin ah, qayb waxa la yiraahdaa kuwa gaala ah, qayb waxa la yiraahdaa kuwa u dhaxeeyo oo munaafiqiin la yiraahdo. quraanku saddexaas qaybood ayuu dadka u qaybiyay, mid walbana suurad gaar ah ayuu quraanku siiyay. oo mu'miniinta hadaan ka soo qaadno suurad waxa jirta la suuratul mu'minuun, gaaladana hadii la yiraahdo suurad waxa jirta la suuratul kaafiruun, munaafiqiintana suurad waxa jirta la suuratul almunaafiquun. saddexaas qaybood ayay dadku kala yihiin. ruux walbana waxa la rabaa marka quraanka intuu akhristo in uu yani ka faa'iideysto oo yani muraayad oo kale intuu isugu fiiriyo qaybta uu ku jiro markaas inuu fiiriyo qaybta xun marka inuu iska ilaaliyo, qaybta uu ku badbaadayana in uu raaco ama uu yani uu isku dayo sidoo uga mid noqon lahaa. marka suuradan qaybta hore mu'miniinta ayaa ugu fiican, mu'miniinta ayaa lagu bilaabay tilmaamaha ay leeyihiin iyo sida quraanka ay uga faa'iideysteen. bismillaahir rahmaanir rahiim. bismillaah ilaahay magaciisa ku bilaabana tafsiirka suuradan. alli arrahmaan xariista guud la, alli arrahiim xariista gaareen laha. alif lam mim. الله أعلم بمراده ayaa la yiraahdaa. alifka iyo laamka iyo miimka yani ilaahay ayaa og macnaha ay leeyihiin. waa un alif iyo laam iyo miim, muraadka laga leeyahayna ilaahay baa og. waxa waa xuruuftii oo quraanku ka koobnaa ee alif waxmaalaha aan dhigi jirnay oo la isku dardaray ayuu quraanku ka kooban yahay. hadii aad idinku samayn kartaan xuruuftan waad ku hadashaan oo carabiga waa taqaanaane bal keena way macna muujisnimadiisa quraanka ayaa calaamad u tahay. laakiin macna ahaan alifkaas iyo laamkaas iyo miimkaas ilaahay ayaa og wixii loola jeedo. fadliga quraanka markii la akhrinayana waa kamid oo hadii alif laam miim la akhriyo yani quraan ayaa la akhriyay oo xaraf ahaan ayaa loo xisaabaya. waa tii xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam ku yiri man qara harfan min kitaabillahi falahu hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha. qofkii hal xaraf ka akhriyo quraanka hasanad ayuu leeyahay, hasanaduna waa la toban laabaya. ma dhahayo yiri alif laam miim hal xaraf ay isku tahay, laakiin alifkuna waa xaraf, laamkuna waa xaraf, miimkuna waa xaraf, yani صدن ayaa saas lagu helay alif laam miim kaliya qofkii akhriya. macnaheedan Allahu a'lam ilaahay ayaa ugu xula jeedo. dalika alkitaabu kitaabkaas quraanka ah la rayba fihi shaki kuma jiro, yani ilaahay xaqiisa inuu ka yimid oo ilaahay ugu talagalay dadkan inay ku badbaadaan adduunkoodii aakhiradooda meesha ay ku liibaan lahayn kitaabkan inuu yahay oo xagga ilaahay laga soo dejiyay. kitaabkaas shaki kuma jiro. gaalada shaki qabta kitaabkan in la iska been abuuray, dad inay iska qorqorteen inuusan ilaahay soo dejinin waxyaabay sheegayaan. marka ha ogaadeen kitaabkani mid shaki uu ku jira ma aha, xagga ilaahay ayuu ka yimid. xagga ilaahay inuu ka yimidna wax shaki ah oo ku jira male, waa xaqiiqo. nabiga ayaa lagu soo dejiyay, nabiga ayaa la yimid. haduu yani uusan ilaahay xaqiisa ka imaanin uu iska hor imaan lahaa oo wax wuxuu ahaan lahaa iska hor yimaada. afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min cindi ghayri illahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. hadii yani ilaahay agtiisa meel kale duu ka imaan lahaa oo ilaahay agtiisa uusan ka imaan lahayn iska hor imaansho badan
ayaa lagu arki lahaa qur'aanka laakiin qur'aankan isku sida u socday shaki kuma jiro xagga ilaahay ayuu ka yimid marka dalika alkitaabu kitaabkaas waxa loo fogeynay ishaaradan oo kaas loo leeyahay manzilada kitaabka ayaa sareysa waa shanigiisa ayaa weyn waa kitaab qur'aan oo aad u qiimo badan marka dalika alkitaabu kitaabkaas la rayba fihi shaki kuma jiro hudan hanuun ayuu lil muttaqiina dadka cabsada u yahay kitaabkan qur'aanka wuxuu hanuun u yahay oo uu tusinayaa wixii dantooda adduun iyo aakhiraba ay ugu jirto wixii yaani dhibaayana oo uga digaya wixii dheef iyo wanaag ugu jirana oo ugu hanuuninaya inta ilaahay ka cabsata marka qur'aanku ma ahan sida midalan cilmigan hadda loo yaqaan midalan science oo kale caafimaadka ama injineeriyada ama handasada oo kale qur'aanku lama mid aha maxay yeelay caafimaadka barashadiisa in la rumaysan yahay oo ilaahay laga cabsanayo iyo kuma xirno mid waxa la dhakhtar ah oo gaal ah wuxuu bartay cilmul amraad cudurrada daawadooda calaamadaha lagu garto sida looga hortago sida ay tahay waa mabaadi isaan oo cilmi saas gaar u ah cidii marka kulliyadaas gasho oo dhigata ama gaal ha ahaato ama muslim ha ahaatee wixii meesha ku qornaay way qaadatay way ka faa'iideysatay laakiin qur'aanku sidaas ma ahano qur'aanka wuxuu hanuun u yahay oo fiicnaanta uu ku aadiyaa qof qalbigiisu uu qoyan yahay oo ilaahay ka cabsanaya midka faajirka ah qur'aanku waxba uma taraayo nin faajir ah oo ilaahay aan ka cabsanaynin qur'aan waxba uma taraayo marka qaarkood waxyaabaha qaladaadka aan galno waxa kamid ah yaani qof ilaahay aan ka cabsanaynin yaa waxoogaa markuu soo dhaco xanuunsado yaa la dhihi culimada ugu yeera bal qur'aan ku akhriyeen markaas ay qur'aan ku akhrinayaan qur'aan haday ku akhriyaan ilaahay wuxuu yiri walaa yaziidu adh-dhaalimiina illa khasaara qur'aanka dhaalimiinta uu uga sii daraa'un maxay yeelay qur'aanka lagu akhrinayo qayb kamid ah waxay tilmaamaysaa inuu san dhaalimku guulaysanaynin markaas waxa innahu la yuflihu adh-dhalimun ayaa kamid qur'aanka lagu tufaayo kan lagu tufaayna waa dhaalim marka wuxuu uma taraayo qur'aanku wuxuu u taraa qof ilaahay ka cabsanaya marka hudan hanuun ayuu lil muttaqiina kuwa ilaahay ka cabsanaya ee toosan ayuu hanuun u yahay wixii xunna uu ka leexinaya wixii sanna uu ku aadinaya muttaqiinta marka waxa laga yaabaa dadka qaar inay dhahaan waan iska dhigayna muttaqiinta oo sida loo jilo ama loo matalo waxyaabaha qaarkood oo riwaayadaha oo kala dadka qaar inay yiraahdaan muttaqiinta maan jilna maan matalno oo inaan taqi ahay maan iska dhigo wax la iska dhigi kara ma aha waa arrin amal ku saabsan hadaad saas samayso oo saas samayso oo saas samayso ayaad muttaqiinta noqonaysaa laakiin hadaadan habkaas ku soconin oo hab kale aad u dhaqmayso laakiin shakliyaad aad iska dhigayso kuma jirto muttaqiinta sifooyinka muttaqiinta maxaa kamid marka si ruux walba uu sifadaas intuu isugu bandhigo haduu ku sifaysayna ilaahay intuu u mahadiyo u sii wado hadii uu ku sifaysnayn uu isaga daayo waxa kamid sifooyinkaasi muttaqiinta ilayhim ko wa alladina kuwi yu'minuna rumaynayeen bil ghaybka rumaynayeen wax maqan ayay rumaynayaan alladina yu'minuna bil ghayb waxay rumaynayaan arrimaha maqan ee ghaybka arrimaha ghaybka waxay yihiin yaani mu'miniintu waxay ku amaanan yihiin inay adduunyada ayagoo jooga ay yaani arrimo aan wali dhicin oo janno iyo naar arrimo qiyaamo dhici doona in intay rumeeyaan ay u diyaar garoobeen oo wixii janno lagu gelinaana ay ku sameynayaan wixii naar lagu gelinaana ay ka fogaanayaan dadka qaarkii taas ma rumaynayaan waxay ku leeyihiin wax aanan arkin itusoo itaagsi aan ahayn oo hortayda aan la soo dhigin anigu ma rumaynayo janna naga dambaysa yaa soo arkay inay janna naga dambaysa in kale warnaara dambaysa ma yaa arkay naartaas iyada kaasi marka uu dhunsan yahay qiyaamaha yaa soo socda ilaahay xulay waa goorma yastaajilu biha alladina la yu'minuna biha walladina aamanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq qofka aan rumaysan aakhiro way dadajisanaayeen waxay leeyihiin waa goorma laakiin kuwa rumaysani way ka cabsanayeen qiyaamo markii la soo qaadaba qalbiga dhaqaaqaaya ayagoo taagan oo kale ay ka soo qaadayeen marka kuwa la amaanayo muttaqiinta arimahaas ghaybka ee wali aan dhicin waa kuwa rumeeyay man khashiya arrahmaana bil ghayb qofkii yani ilaahay uga cabsada maqnaansho ayadoo ghayb la joogo wali meeshii aan la gaarin ama aan la tagin alladina kuwa yu'minuna bil ghayb ghaybka rumaynayeen wa yuqimuna salata salaadana oogayeen ومما رزقناهم وحان سين قاركينا ينفقون بحناين وصدقيسناين متقينتو وكو غيب كرميسان إن آخر جرت وكو رميسان وحيابها غيبيات كلي هذا هذا هرتين أن أولين كو رميسان وكواس الذين يؤمنون بالغيب كو غيب كمركي رميين غيب كلا رمي وحكينا يا إلهي قاد رميسان تحي يا آخرات قاد رميسان تحي يا وحيابها كدعدوناي إن أديار جرود وديار جروجاس وحكمه صلاة إلا تكذب لماذا صلاة مالن والبلو تكنايا وحلو تكنايا مالن تاس قيامها إيمان دونتا
إلهي إنه أبال مرين في عن وكسيه مركوا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة صلاة أوجاية ومما رزقناهم وحا أنسين قاركين ينفقون بحنايا يعني وحا بحنايا دينتين ودين واقعية إنسانك طبيعة سأيه تقانا هدي حولها وهيستور دان كل سو wareej la yiraahdo diintii inuu ka baxaya dhici karto yiraahdo diintan xoolaha iga dhameynaysa anu ma barababa ilaan xoolaha insaanku jecel yahay markaas waxa li kullaha wada bixinana qaar kamid ah bixi sababtu maxay tahay ilaahiga xoolahan ku siiyay wuu kugu imtixaamaya bal saad u dhaqmayso mid walaalka ah oo waxba haysanin oo xoolahan aad haysato oo qaar kamid u baahan ayaa jireen wax dib ugu celi hadii saas la isugu celiyo midka aan haysanina wuxuu u ducaynaa kii wax haysto oo xoolahan inay sii bataan si asna wax badan loo siiyo ayuu duco la fadhiyaa qofkii wax bixiyayna laabtiisu way furnaanaysaa oo maxaa yeelay maalkiisa meesha uu galiyay ruuxu uu siiyay uu jeclaanayaa ruux asaga ilaahay sababtiisa uu ku badbaadiyay oo uu ku noolaaday oo wax uu ku bartay oo qof fiican uu ku noqday wujuudi asaga ilaahay ayaa galay oo asna uu ku farxaaya marka mujtamaca muslimka ahi waa mujtamac saa isugu naxariista maaha mujtamacaadka hoos inta albaabada ka soo xirtaan oo kale yani anigoo waan shaqaystay adna ma shaqaysatid oo qofkii miskiinka waxba lagu celinin haday taas dhacdo nidaam dabaqaad ayaa la yiraahdaa oo dabaqaad dadka inta u kala baxaan qaarna ay yani meel ay wax geeyaan ay waayaan raashinka intu ka bato oo lacagta ay ka bato si ay yeelaan kuwana ay gaajo u dhintaan halkaas waxa ka dhaca dagaalo ku dhisan waxyaabaha maalka iyo kan inuu kan ka dhacayo rabaa kan wixiisa ayaa laga dhacaya mujtamac xaqdi oo ka buuxsan ayuu noqonaya laakiin sida quraanka uu daawada u yahay hadii umuraha ijtimaaciga loo xalliyo oo kii wax haysta lagu tirtirsi inuu wax bixiyo kii aan wax haysanina inuu sabro wixii la siiyana uu ku qanco mu'miniinta saasay waxay ku yihiin bulsho wanaagsan marka mu'miniinta ilaahay ka cabsanaysa muttaqiinta sifooyinkooda saas ayaa kamid oo mimma razaqnaahum waxa aan siinay qaarkiina yunfiquuna way bixinayaan walladina yu'minuna bima unzila ilayk sifooyinka muttaqiinta waxa kale oo kamid ah walladina kuwi yu'minuna rumaynayeen بما أنزل إليك وحي أذيك لوسو دجي نبيو وأكو قرآن كرميسا وما أنزل من قبلك كوي أذيك كاهري رسوشها وحي لوسو دجينا كو رميسا هل كاسو ماشي أنكو كلا اللي حني إنك يودات كان ليله أهل كتابك أما يهود أما النصارى ماشي أيك أي كو خلطمين أما يكو قالوين وحيتاي أي وحي هذين نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه أنك وحي لوسو دجي بس أيان رمينا وحي كلام وحبنا جمجلين أنك marka toodu waa qaasir oo waa iimaan juz'i oo qayb ayaan rumaynayna ilaahina ma yeelayo juz ma yeelayo wuxuu rabaa ilaahay wixii la rabay in la rumeeyo oo dhan in la wada rumeeyo taasna waxa ku sifaysan mu'miniinteena oo ilaahay quraanka inoogu tilmaamay mowqifkeena inuu yahay la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ma kala qaadayno rususha ilaahay oo qaar intaan rumayno qaar aan beenino ma yeelino kulli waan rumaynayna saas daraadeed markii midalan xiwaar la galo oo yani dadka qaar yani si in loo qanciyo ay noqoto oo dad ilaahay kuwan waa kitaab soo degay oo samada ka yimid oo nasaarada ama yahuudu kitaabay haystaan maxaan gaalo uga dhigaynaa oo saasay tahay in la yiraahdo waxa looga dhigayaa innagaba hadii aan rususha ayagu ay rumaysanyihiin nabi ciise iyo nabi muuse aan beenin lahayn waan gaaloobi lahayn ayagu waxay ku gaaloobayaan markay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ay diideen ayay saas ku gaaloobayaan marka inagu waxaan shaamil waa arinteena meesha ay ku khasaaran ayagu waxa la yiraahdaa Soomaalida waxay maamaha waxay yiraahdaan shaygan waxa la yiraahdaa midalan gaabi waa la helaa laakiin dheere lama helo ayagu waxood way gaabsadeen marka hadii rasuul kaliya inta ay ku joogsadeen ay rumaysteen rasuul kale uu ka maqan yahay markii loo qabsoo leeyahay rasuulkaas kale maxaad u rumayn weydeen jaaway dhaceen ayaga laakiin inaga rasuushi oo dhan ka ayagu rumaysnaan waan rumaynay mid ayagu ayna rumaysnaan oo la dheernahayna waan rumaysanahay saas ayaan u nahay ummad wasat ah oo xaq ku taagan marka muttaqiinta quraanku oo hanuunka u yahay sifooyinkooda waxa kamid ah walladina yu'minuna kuwa rumaynaya bima unzila ilayka adiga wixii lagu soo dejiyo oo quraanka ah wama unzila min qablika horta wixii la soo dejiyay oo rusushii hore lagu soo dejiyay oo tawreed iyo injiil iyo zabuur iyo suxuf ibraahim iyo kutubta ilaahay uu soo dejiyay suxuftiiba way rumaynayaan wa bil aakhirati aakhirahum ayagu yuqinuna wa yaqiinayaan yani muttaqiinta ilaahay kitaabkan quraanka uu ku anfacay sifooyinkooda waa sidaas quraanka ay rumaynayaan kutubta ilaahay hore uu soo dejiyay iyo rusushii ilaahay uu soo diray dhanbay rumaynayaan aakhirana hum yuqinuna wayba yaqiinayaan way hubaan aakhira inay jirto ay rumaysanyiin haday saas noqdeen muttaqiinta bal sifadooda iyo xaalkooda markii la soo khulaaseeyo waa dad noocee say wadada ahayeen waa wada sidee ah ulaaika kuwaas la soo tilmaamay ala hudan hanuun korkii ayay ku sugan yihiin way hanuunsan yihiin ulaaika kuwaasi ala hudan hanuun korkii ayay ahaadeen
oo min rabbihim rabbigooda xaggiisa ka ahaaday hanuun ayaga le ay iska dooneen oo say rabaan ay hanuunka u arkeen arrinku ma ahee waa hanuun ilaahay uu u sharciyeeyey oo xaggiisa ka yimid waddo sax ayay hayaan ciddii sidaas yeesha oo tilmaamihii hadda lasoo tilmaamay ku sifowda ciddaasi waddadii toosnayd ayay haysaa ilaahay ha uga mahadiso hor ha ugu sii socoto ulaa'ika kuwaasi calaa hudan hanuun korkii ayaada min rabbihim rabbigooda xaggiisa ka aaday wa ulaa'ika kuwaas aan soo tilmaanay hum ayagu almuflixuuna kuwa liibaanay ayay ahaadeen liibaan adduun iyo aakhirada way heleen adduunkiina waxay ku nool yihiin sacaado iyo xasilooni iyo qalbi furnaan iyo niyad sami aakharana janno waxa ilaahay uu ku diyaariyey aan la soo koobi karin ayay leeyihiin marka ulaa'ika calaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika hum muflixuun qaybtii koowaad waa intaas marka oo dadka markii saddex qaybood loo qaybiyey qaybta ugu horeysa oo la yidhaahdo almu'minuun sifooyinkooda iyo inay hanuunsan yihiin adduun iyo aakharana ay liibaanayaan qaybtaas ayaa intaas looga baxay waxaan gelaynaa qaybta labaad oo gaalada la yidhaahdo marka qof walba waa inuu aad ula socdo qaybta uu ka mid noqonayo si yacni ikhtiyaarkiisa ana uu ku doorto maxaa yeele ilaahay wuxuu aqbalaa shayga qofka uu asagu ikhtiyaarkiisa ku doortay waxa lagu qasbay waxba lagama helo yani aslan qofka hadduu xataa dembi qasab lagu dembaabsiiyo yani looma haysto qof haddii la yidhahdo ilaa ilaa xaaskaaga fur haddii la yidhahdo tusaale ahaan maalan oo yidhahdo waan furay ma furno maxaa yeelay qofkan ikhtiyaarkiisa kama soo goyn iimaanka ilaahay la rumaynaayana waxaa rabaa inuu ikhtiyaar noqdo qofkii marka asaga intuu kaas diido yidhahdo ma aanu ma rumaynaaya meel kalen aadaya kaas wadadiisaasna waa loo cadaynayaa meesha ay ku dambayn doontana waa loo sheegayaa hadhow marka yuusan calaacad ani saan uma malaynaysan ku noqonin marka gaaladana bal aan fiirin oo qaybta labaad ah oo dadku saddexda qaybood ay u kala baxaan qayb ka mid ah qaybta labaad oo gaalada waxaa la yidhi ina aladiina kafaruu kuwa gaaloobay sawaaun calayhim korkooda waxaa isku mid ah aandartahum u digtayaa am lam tundirhum ama uma aadan diginaaba laa yu'minuuna ma rumaynaayaan yani mawqifkaas ay ka istaagaan iimaanka ayaa mawqif aad u adag ah ilaahay dabeicadooda ayuu yaqaanaa kuwaas marka gaalada ah waxaa la yidhi qalbigooda ayaa si xun noqday haddii la wacdiyo iyo haddaan la wacdin waa isku mid taariikhda kuwii soo mareen saan bay ahaayeenoo nabiyadii ilaahay uu soo diray markay wacdiyaan qaarkood waxay jawaabi jireen sawaaun calayna awcadta am lam takun min alwaacidiin waxaa isku midana wacdidayaa ama iska dhaaftayaaba waa isku mid sidaana iska ahaanaynaa ina aladiina kafaruu kuwa gaaloobay sawaaun waxaa isku mida calayhim korkooda aandartahum u digtayaa am lam tundirhum ama uma aadan diginaaba laa yu'minuuna ma rumaynaayaan dhagax waxaa layihi taabasho iyo tantoomo waa isugu mid dhagax ayay noqdeen sababtu maxay tahay marka maxaa saas ka dhigay sababtu waxay tahay saas waxaa ka dhigay khatama allahu ilaahay ayaa daboolay calaa quluubihim quluubtooda ayuu ilaahay daboolay ilaan qalbiga ayaa waxa lagu fahmaa iimaanka iyo xaqa meesha qofku uu ka qaato waa qalbiga qalbigu hadduu xumaado xubnuhuna way xumaanayaan alaa ina fi ljasadi mudqa xadiidku waa tuu ahaa jirka waxaa ku jirta xubin idaa saluxat saluxa aljasadu kulluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalbu qalbigii sidaas ahaa ayaa la sharooteeyey waa la daboolay haddaad soo qaadato maalan caaga saddexlaha ah oo afka aad ka daboosho oo daboolkiisa aad ku xirto haddaad tidhahdo biyo ayaan ku shubayaa biyahaasi ma laga yaabaa inay gudaha u galaan caaga oo afka ka xiran ma dhici karto biyo kastoo ad ku shubto dhinacyada unbay ka maraayaan gaaladuna waa saas oo kale oo qalbigii yani xaqa uu geli lahaa ayaa ilaahay uu qufulay markuu qufulay xaq walba oo ay dhegaystaan xaq walba oo ay arkaan dhinacyada unbuu ka maraayaaye kuma duxaayo oo qalbigooda ma gelaayo maxaa yeele qalbigii wuu xiran yahay ilahay qalbiga inagama xire khatama allahu ilaahay waa uu daboolay calaa quluubihim quluubtooda ayuu daboolay wa calaa samcihim maqalkoodana wuu daboolay oo xaqii ma maqlaayaan wa calaa absaarihim indhahoodana wuu daboolay khatama allahu ilahay wuu ku daboolay calaa quluubihim quluubtooda wa calaa samcihim maqalkooda wa calaa absaarihim indhahooda ghishaawatun dabool ayuu saaray wuu alxamay dabool ayuu korka ka saaray qalbigooda dhagahooda iyo indhahoodaba walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab ayay leeyihiin cadiimun oo aad u weyn gaalada adduunyada maalmaha joogjoogeen waxoogaa yar oo adduunyada ku saabsan oo awood ah ha sheegteen laakiin taas in lagu kadsooma ma ah maxaa yeele waxaa ka dambeeya taasi walahum cadaabun cadiim cadaab weyn ayay leeyihiin waa aayad qur'aana wax yacni dad lagu caynaayo ama dad lagu xumaynaayo ama la iska leeyahay arrinku ma ahe waa qowlu rabbi alcaalamiin
oo dadka sidaas dhaqankoodu uu noqday marka dadka saas dhaqankoodu noqday yani saas loo ciqaabayana macnaheedu yani ma aha qofkan shakhsiyadiisa la neceb yahay shakhsigiisa arinku meehe waa hab dhaqankiisa ilaahay dadku u abuuray ma kala jecelo kana hebel iyo kana hebel wuxuu ku kala jecel yahay ama ku kala neceb yahay hadba si ayaga u dhaqmaan kuwan markay suxun u dhaqmeen oo qalbigooda uu saas oo noqday walahum cadaabun cadiim cadaab weyn ayay leeyihiin qaybtii labaadna oo gaaladana waa midaas qaybta saddexaad munaafiqiin ayaa la yiraahdaa ayagana bal aan fiirino sifooyinkooda sida ay yihiin waxa wa min annaasi dadka waxa kamid ah man mid ayaa kamid ah yaqulu dhihi aamanna billahi ilaahi ayaan rumaynay wa bil yawm al aakhir maalinta damana waan rumaynay wama hum aysanahan bimu'minin mu'minin ma ahan laana sheegasho afka wax laga sheegtay ilaa wax ma tarto amal iyo hawl qabta ayaa loo baahan yahay yani munaafiqiinta hadii aan taariikhdooda wax yar dib ugu noqono islaamku markuu bilowga ahaa ee Makka mu'miniintu ay joogeen tiradooduna ay yareed marxalad waxay ku noolayeen adag oo ruuxii mu'min noqdaa oo diinta islaamka soo galay wuxuu u diyaar garoobayay naftiisa iyo maalkiisuba inay halis ay ku jiraan maxaa yeelay dadka ahlu baadilka ee markaas awoodda haystay ma ayna ogolaanaynin sidii dhaqanka ayaga u ahaan jirtay intii laga guuro habnooleed cusub oo ilaahay uu soo dejiyay rasuul uu soo diray in la raacay way iskala weynaayeen ma ayna yeelaynin ruuxii wadadaas ka leexdana waa la ciqaabay marka waxa soo islaamay markaas ruux ku talagalay inuu dhibtoodo si uu aakhira u raaxaysto marka qof munaafiq noqonaya meesh ma ba iimaanay maxay yeelay wax laga dheefaayo oo meeshan qofka maanta hor taala oo uu munaafiqeeyo ma ba taalaba ruux naftiisa huray maalkiisa huray ayaa mu'min noqon jiray waa la hijrooday madiina ayaa la tagay muslimiintu barwaaqo ayay ku dhaceen dhul ayay heleen dawlad ayay noqdeen dadkii marka yaani aan soo raacin mu'miniintaasi habnoololeedkooda ayay u cabsadeen waxay yiraahdeen haddaad dadkan tirada badan ee islaamka soo galay ee mu'miniinta habkay u dhaqmaayaan iyo iimaankan ay qaateen haddaad la qaadan weydaan nolol idin suurtoomayso ama waa la idin dilayaa ama lacagta iyo xoolaha iyo maalkan la isasiinaayo ilaan dadkan la socdo ma tiidiine waxba ma helaysaan si marka ayna saas ugu dhicin ayaa waxay jileen islaamnimo ayna rumaysnayn markaasi afka waxay ka yiraahdeen waan soo islaamnay muslimiinaan nahay misaadkay iimaanayaan tukashadii la tukanayaan laakiin gudaha dantan baa ku kalifayso oo adduunyadeedan waayin iyo naftiina yaan la idin qoonsanin ama la idin dilaa cabsi ay ka qabaan ay afka uga sheegeen laakiin xaqiiqa ahaan dhab ahaan qalbigooda wax ay ku qanceen oo islaamku inuu macaan yahay oo uu qiimo leeyahay qalbigooda ka dhacday ma ah afka markay ka sheegeen maadaama samadii ay furan tahay waa in la fadeexeeyo la sheego yiraahdo dadka qaarkiis way jilayaan islaamnimada islaamnimo ma aha waxoodu afka ma dhaafsiisno gudaha waxba kama rumaysno taas yaani wixii gudaha ilaahay inuu ka soo warramo ma ogi wax la garan kara ma ah ilaahaygi gudaha wixii ku jira ogaa ayaa ka soo warramay markaas ilaahay wuxuu yiri waa min annaas dadka waxa kamida man mid ayaa kamida yaqulu dhihi aamanna billahi wa bil yawmil aakhir ilaahina waan rumaynay maalinta dambana waan rumaynay afka saas ayuu ka leeyahay laakiin xaqiiqa ahaan gudaha markii la fiiriyo wama hum ma aysan ahaanin bimu'miniina mu'miniin ma aysan ahaanin waaye hadayna mu'miniin gudaha ka ahayn maxay u leeyihiin aamanna billahi wa bil yawmil aakhir may banaanka iska istaagaan sida gaaladii la yaqaanay in alladina kafaru sawaa'un alayhim laha banaanka iska istaagaan ama waxa heleen ama yeysan helin ama halala dagaalo ama yaan la dagaalin sababta keenaysa waxay tahay sidaan soo socota waxa la yuqaadicuuna allah ilaahay bay dhakraayaan ilaahay inay khiyaanaan ayay iska dhigayaan ilaahay lama khiyaani kare laakiin ayaga waxa iska dhaadhiciyeen habkaas hadii ay sameeyaan inay ilaahay ay khiyaani karaano ay ku badbaadayaan noocaas waa sidii ninba wax laga sheegay soo sooman yaa intu biyo meel biyo webi ku jireen webi intuu yimid yu korkaan dadka u jeeda haduu biyo ka cabay soonka ka furmaaye intu biyo hoos u galay yu hoos ka soo cabay markaasuu banaanka ku soo dhacay afku iska tirtiray markaasuu waa kaase saasa ilaahay loo siraa hoos in laga uu ka soo cabo wuxuu u maleeyaa inuu ilaahay soo sira uusan ogeyn marka qofka haduusan ilaahay rumaysan oo uu ogeyn ilaahay inuu og yahay wax walba la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa ilaahay wax ka qarsan ma jirto
إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله وحي الله سمايه وحيا هرنها هذا أو نجح سلكي الجريه إلهي وأجيه روح إيمان كاسله كاون با وحس يا وحي حنس كديناي لكن قف لينا يا سيدا موقعك كموقتدتك هدات كقومة وحوات سمين كرتا سيداس إلهي ليا سيداس أيو رقم منافق أيونا نقضي مركب واحد منافق يهين يعني واسي أي أفكتان أو استجدان إلهي إني خيانين مركب يخادعون الله إلهي أي خيانة يعني سلا أيو استجدان يعني وين معنا يا والذين آمنوا يا مؤمنين تؤبين جورا أفكار ويكل جيران وحلين أننا إذن كان إذن لجرنا مؤمنين أننا سانا أننا أي كوهايان سداسة وحي أملايان إنه يكبت بادايان رغنما أي أملايان markii intii shib laga yiraahdo kuwan afkay ka sheegan mu'miniin naga dhaafa yaa wax la yeelina banaanka gaar markay isu baxaan qosol ku dhufanay war ma arkayseen saan u galnay fiir adiga waan iska ayadaha soo socday noo sheegi doona waxay leeyihiin run ay nooga maleynaan annagana waan ku jeesjeesin alla kuwaas doqon sana waxay kala og yihiin male sidaas ay rabaan inay ku noolaadaan marka munaafiqiintu waa dad aan qiimo lahayn mabda aan lahayn ruuxna siisa wuxuu ku fiican yahay inuu mabda yeesho meel in loogu soo hagaaga meeshaasi ama ha ku qado ama ha ku qurtee waa in mabda loogu soo hagaago laakiin kolba meel inuu u leexleexdaay waa munaafiqnimo way macnaha marka waxay isku dayayaan inay ilaahayna khiyaanaan mu'miniintana khiyaanan habkaas hab dhaqanka oo afkana iimaan laga sheeganayo gudihiina gaala laga yahay waa hab ay rabaan inay ku siraan mu'miniinta saasna ma dhacayso markaas waxa wama yakhda'una mana dhakraayaan ama ma khiyaanayaan illa anfusahum naftooda bay khiyaanayaan oo naftooda waxay ku khiyaanayaan wax aan soconaynin ayay shabaan inay socodsiiyaan maanta adduunyaha la joogaa bari way dhiman doonaan aakhira ayaa la aadi doonaa ilaahay oo caliim bidaat suduur ayaa la hortagi doonaa hawl ay soo qabsadeen oo ay janno ku galaan meesha ma taalo ayagu waxay islaha insaan ku badbaada ma ayna badbaadina naarta meesha ugu hooseysay ayay ka galaan innal munaafiqiina fi daraki al-asfali min an-nar hatta gaalada banaanka gaalnimada la istaagtay ayaga ayaa ka hoos maraya gaalada ayaa ku joogjoogsanaysa hoos ayaa la gelinaya maxaa yeelay nifaaqa ayaa ka xun gaalnimada wama yakhda'una illa anfusahum naftooda ma wax kale dhakraayaan male wama yash'uruna laakiin wax ma dareemayaan dareenkii baa laga qaaday qofku markuu qalbigiisu uu nool yahay wixii xun markuu sameeyo wuu gugubanayaa wuu ka shalaynayaa ruuxaas ma fiicnayn laakiin qofku markuu dambigu ka bato qalbigiisu intuu madoobaado yaa shaygii xumaatada ah wuu la fiicnaanayaa shaygii fiicnaanta ahana wuu la xumaanayaa dareenkii oo dhan ayaa laga qaaday qofku marka mu'minka ahay dareen ayuu leeyahay oo qofka yaani xumaan way dhici kartaa qofku uu gafi kara bini aadamku inay gafaan yaani wax yaani fog ma aha waa la gafa kullu ibn aadam khata لكن قفك إيمان له وحصوصنا يا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلهي أي حصوصنا دب أي أصول فاستغفروا لذنوبهم لكن كوا منافقين تاي هبكاس أي سميستين أي هبنولات حنقة أي كوقن عين إن السداسي الدنيا آخر أنفعيس أي أقاتين مركة تاسنا وحما ما إن ترين درينك أمبا كم مقن وما يخدعون إلا أنفسهم نفتوا ذمي وحكا لما خيانا وما يشعرون من الدرين ما درين مالي dareen ay ku soo laabtaan oo isku muraajiciyaan oo dhahan war wadadan aan haynay sax ma ah aan dib u laabana mala sidan ayaa la quman sababtu ay saas u la qumanaatay waxay tahay fi qulubihim maradun qalbiga ayay ka jiran yihiin qalbiga ayay ka bukaan qalbigi ayaa bukooday ama jiraday fi qulubihim qulubtooda ayaa maradun jiro فزادهم الله إلهي أي أزيادي مرضا جفاء أي إلهي أزيادي فزادهم الله مرضا ولهم وحيليه عذاب أليم وحنوجي بما كانوا يكذبون بيننتي أي بينين جرين أي إلهي ساس وقال في قلوبهم مرض فزادهم الله فزادهم الله ودعاء عليه بل هذا وحبار في قلوبهم مرض قلب وضع أي جراء هاتيه فزادهم الله أزياديو مرضا عذر الله أزياديو maxay ruuxu soo asaw iska dhigo ayuu ilaahina kula dhaqmaa haduu ruuxu hanuun sanaado ilaahay hanuunka ayuu ziyaadiyaa walladina ihtadaw zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana haduu laakiin baadiyoobo baadinimadkaas ayaa lagu sii fogeeyaa qul man kana fi dalalati falyamdud lahu arrahmanu madda qofkii baadinimo ku sugnaada ilaahay baadinimada ha u ziyaadiyaa lii kuwan qalbiga ayay ka jireen munaafiqiin ayay noqdeen munaafiqnimadaas Allah ku fogeeyo fi qulubi maradun fazadahum Allah maradan ilaahay marad ha ku sii ziyaadiyo walahum waxayleen cadaab ilayhin alimun mu'limun wa hanujiya bima kanu yakdhibuna beenintii ay xaq beeninayeen sababteeda beenintaas iyada sababteeda ayay cadaabkaas aliimka ama xanuunka badan ayay ku mutaysteen qalbigoodan sidaas ay u jiraday ilaahay munaafiqiintaas inuu ma daro khayrka iyo tawfiiqdan Allahna waafajiyo darsigeena maanta intaas ayuu ku ogyahay wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala
وبركاته.